aanu ku eegi doono taariikhda ereyga Soomaali halka uu ka yimid. waxaan u mahadcelinaynaa waqtigiisa qaaligana waraysigan ku soo bixiyay aqoonyahan Soomaaliyeed Sufyaan Sheekh Axmed oo si weyn looga yaqaano guud ahaan Soomaaliya. marka hore ku soo dhaw Soomaali Cable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وري عبد الله هذه أضبط ما سنتهي وكله هاي channel كينا Somali Cable. Thank you very much. هذا ما سنت وقتي غالي وكاجا مهد علينا. أنت عن موضوع مركه هراء عن وجود الجلين برامجك وكوساب سنية هاي وحجر ملمي جدا بيجي ورر شيء إن مركه إصابة مقالدي لقط ضبوري سيدي كلا الدوانا يفعل علنتي مركه كرالتي in lagu xiray oo maaragtay su'aalo lagu weydiinay arintaas waxa ka jirto aad baa u mahadsan tahay arintaas wax ka jira ma jiraan in hala kaatay wax su'aal i weydiiyay wax i yimid wax ila hadlay ma dhici kartaba wax la igu weydiiyo su'aal ma jirto wax la igu soo doonto ma jirto dambi aan gala ma laha waxaasi dadka macnaha criminology-ga barta ama dambiyada baarahay waa yaqaan waxaan inaysan waxba ahayn therefore nothing happened wax dhaca ma laha هذا ما سنتهاي ورجينا ضد بدن إن أوفافايسي مركان جود قلنا برامج كموضوع ما دام باريتان بدن سميسين أو تاريخ بدن كشكيسي وحيابها كلا الله سكوه يستوي حيتهاي وإذا هذا لك الدون أما باريتانا كلا الدون أي مادين هل كوكيميد أرجع صومالي هل كوكيميد بل باريتان ما سميسين أو حكم كيسا absolutely مقع Somali marka aan si toos ah uga jawaabo waa abuulanka ama abtirsiga in ka badan 85% dadka Soomaaliyeed dhamaantood meel kasta ku nool yihiin markaan 100% aan leeyahay 85 waxa ku jirta dadka wadanka Djibouti Somaliland Somalia Somali Kenya Somali Ethiopia 85% of all Somalis waxay ku abtirsadaan magacaas Somali waana meesha magaca Soomaali sida xaqiiqda uu ka yimid waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay isweydiiyaan why loo yiri Soomaal waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago ereyga Soomaal xataa aqli gal ma aha logic ma aha marka ereygaasi halkaas uu ka yimid Soomaal wax jira ma aha waa erey uu bixiyo Talyaanigii si uu u marin habaabiyo dadka wadanka ugu yimid dadkii uu la dagaalamay taariikhdooda uu qariyo marka hore maxaa la dhihi jiray weligood basaasi ahay weligood basaasi aan magaca Soomaali wuxuu ka bilowdaa inta baaritaanka anagu aan sameynay la qarnigii 7 qarnigii 7 wuxuu ahaa markii diinta Islaamka Soomaaliya ay soo gaartay halkaas uu ka soo bilowdaa weligeedna wuxuu ahaa magacaas ayaa loo oran jiray Soomaali waa abtirsiimo waa 85% dadka Soomaalida ahi waxay ku abtirsadaan sidaas weey marka Soomaalida oo dhan waa ku wada abtirsadaan miya Soomaali no 85% ku abtirsata 15 dhawaanihi meelahaas kuma abtirsadaan iyaga laftigooda xagee marka baaritaanka sameeynayeen halkee aad isleedihiin way ka yimaadeen wari Cabdullaahi waxaan rabnaa maalin gooniya waa arin baaritaan aad u dheer oo aan sameynay marabno hadda inaan galno waxaan uga hadli rabnaa ama aan rabnaa inaan uga hadalno si gooniya laakiin maadaama ay weydiisay magaca Soomaali waxa uu ka yimid iyo meesha uu waxa uu yahay meesha uu ka yimid waxaan sharaxaynaa oo kaliya magaca Soomaali waxa uu yahay magaca Soomaali waxa iska leh waa abtirsiimaha 85% dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin daaris waxa Soomaali uu yahay marka Soomaalida marka aad fiirisid maxay tahay sababta loo marin habaabiyay oo taariikhdooda loo lumiyay oo hadda sidaad noo sheegtaba loo lumiyay aad isleedahay sida caadada ahba meel kasta oo gumaysuhu uu yimaado wuxuu isku dayaa inuu sameeyo flip means in uu gadiyo oo dadka majority-ga ee wadanka iska leh ee uu la dagaalamayo uu qariyo taariikhdooda qariyo magacyadooda dilo ama laayo asaan wada ognahay taariikhda Soomaaliya maantay dadka uu la dagaalamay gumaystii markuu soo galay waxa jirtay boqortooyadii Hiraab boqortooyadii ugu weyneed waxay ka talinaysay Kismaayo from Kismaayo ilaa Ethiopia ka talinaysay dadka uu la dagaalamay waa dadkaas dhinaca kale to Ingiriiska wuxuu la dagaalamayay dadka ayaguna ku abtirsada magacaas Soomaali reer waqooyiga ayuu la dagaalamayay ama Ciisaha ama Isaaqa dadkaas oo dhan leh marka wuxuu u qariyay because maadaama dadkii dagaalka ay ku qaada u yihiin dadkii uu la dagaalamay dadkii uu xasuuqay yihiin wuxuu ugu talagalay in uu taariikhdooda qariyo xataa geesiyaalkii dadkaasi halgamayaashoodii maanta taariikhdu waxba kama xusto waa waxa aan rabnay inaan baaritaan ku sameeyno waana waxa aan rabnay inaan soo bandhigno waxayna la mid tahay mesela in calanka uu yiri nina sameeyo oo kaleeto uusan sameeynin maanta aan ognahay taariikhda banaanka ay tahay qof Soomaali uusan sameeynin iyo waxyaabo la mid ah marka ujeedadii uu ka lahaa Talyaaniga ama
gumaysto waxay ahayd in uu qariyo completely taariikhda dadka Soomaalida ah ee uu wadanka uu la dagaalamay ee asaga ka soo horjeeday sidaas ujeedadu ahay gumaystaha marka Soomaali kale ayaa garab ku siinayeen mise iyaga fikrad ay wateen ayay dadka ka dhadhiciyeen of course Soomaali dad badan oo la yaqaano maanta taariikhdu aan rabna hadii ay banaanka inaan soo dhigno taariikhduna ay sheegayso ayaa la socdo gumaystaha iyaga caawinayay iyaga ciidan u ahaa macnaha markii dad Soomaali la xasuuqay dad kale oo Soomaaliya ciidan ah oo xasuuqay gumaystaha kaliya macnaha askar Talyaani ama Ingiriisi inta timid macnaha badankooda dadkii la socday oo u dagaalamayay waxay dad Soomaaliya oo iyagu ay tababarteen dad Soomaaliya oo interestigoodu macnaha danta dadkaas iyo dantii gumaystaha ayaa kulmay saas u dagaalku ah intaas markaan ka soo gudubno arinta dastuurka Soomaaliya iyada maxaa ka aaminsantiin anaga hadaan anahay team tala ku nool waxaan aaminsanahay Soomaaliya in ay ku dhaqanto loo sameeyo aan qaadano dastuurka islaamka kitaabka jaamaca inaan qaadano saasaan aaminsanahay wixii intaas ka sokayahay waa waxaan dadka Soomaali u qalmin waa waxaan wadankeena badbaadin karin waa waxaan difaaci karin waa wax runtii aan ku jireyno tii iyo problem inta waqtigeena ka hartay waxa kaliya ee badbaadi kara maantay waa inaan qaadano dastuurka islaamka kitaabka jaamaca laakiin dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran in wax walba oo aan waafaqsanayn diinta islaamka aysan macquul ahayn ama aan la qaadan karin arintaas bal ka waran dastuurka islaamka dastuurka Soomaaliya haday arintaas ku qoran tahay waxa meesha laga weelaha wax la yiraahdo in laga dejiyo sharciyo sida mesela jinsiyada oo kale to in la keeno oo laga hadlo arintaas waayo hadii kitaabka jaamaca wax ku qoran yihiin qof inuu ka daba qoro kitaabka wixii ku qornaa ama uu asagu sharci dejin ka sameeyo waa qalad micnaheedu marka waxa weeyaan hadiiba aan anagu awood u leenahay ama baarlamaankeenu uu awood u leeyahay inuu sharci kitaabka ku qoran ama diinta islaamku ay qabto inuu asagu wax ka qoro micnaheedu waxa weeyaan kitaabkii wali ma haysan weeyaan waxa loo baahan yahay islaamku waa qaba mustalaxaad wax la yiraahdo mesela oo ah waxyaabo sida internetka oo kale sida page loo control karto sida waxyaabo noocaas oo kala in laga dejiyo shuruuc oo dadku u baahan yihiin waa wax macquul ah wax loo baahan yahay laakiin wax aayad quraan iyo xadiis ay sharaxeen inaad ka daba qorto wax ama aad wax ka dejiso waa mamnuuc sida aan ognahay boqolkiiba boqol dadka Soomaaliyeed waxa la dhigi karaa dad muslimiin waaye diinta ku dhaqmo maxaa u leedahay marka waxa laga yaabaa in waxyaabo kale ay adeegsanayaan dadka Soomaalida boqolkiiba boqol waa islaam waxa jirta dadka Soomaalida in diintii laga cabsiyo macnaha laga cabsiyo markaan leeyahay waxa jirta Soomaaliya Muqdisho waxay soo martay waqti ninka qamiiska wata ama gar kale laga cabsado ilaa maantana dadkii psychologically taasa wali ku harsan waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed daan team tala ku nool inaan la wadaagno in ay xalka wadanku uu ku jiro marka la yiraahdo haybta koorka oo la tirtiro diinta islaamka ku jirta qaran in la soo celiyo diinta islaamka ku jirta wadanka inuu amaan iyo nabad ay ka dhasho diinta islaamka in la qaato weyn marka problem kasta oo maanta wadankeena haysta waxa xal u ah waxa solution ah kitaabka jaamaca laakiin hadda burbura lagu soo jiray sidaad ogtahay dabcan aad ka warhayso dastuurka Soomaaliya qabiy qoraalkiisa wax badan ay soo qaadatay xilliga hadda la joogo misleeda markan waa la iswaafajin karaa waxa loo baahan yahay markaan ka tagno waxyaabaha detailska yararka ah oo macnaha dastuurkan si loo qoray dastuurkan cidii qoray ognahay tii hore Talyaani qoray kana Talyaani qortay lacagta ayaga ku bixiyeen pointigooduna waxa weeyaan inay maintain gareeyaan inay meesha ku haystaan wixii ayagu ay qorteen oo ah haybta koorka inaan sii wadno qabiil inaan u kala qaybsanaano inaan dhaqamo shay ay soo fargeliyaan waxaana qoom caadadoodii ka tagnay caadadeenu waa caadada islaamka dhaqankeenu waa dhaqanka islaamka caadadeena waa ka tagnay mid kalena ma haysano sababaha keena maanta wadankeenu inuu burburana saasa kamida sababaha keena wadankeenu xataa argagixisada waxa la yiraahdaa inay yimaadaan waxa koosgareeyay annaga nidaamka noo yaal marka waxaan leenahay aan rabnaa shacabka Soomaaliyeed la wadaagno dastuurka islaamka ayaa xalku ku jira dhinac kasta oo Soomaali u fiirsan isaga hadaan qaadano wadanka noo badbaadiya haybta koorkan tirtirayna waxaan ka baxaynaa dagaalka cadaalad baan noqonaynaa waxaan ku noolaanaynaa nabad baan ku noolaanaynaa caalamkana wax waa la qabsan karnaa annagoo islaama ayaan caalamka wax la wadaagi karnaa laakiin urdiimeed badan ayaa waxa jira soo baxay sidaad ogtahay oo hadba soo marayay qaybo kala duwan hadda al-shabaab oo kale ayaa ka jiro daacish way jirtaa iyaguna waxay sheegayaan inay diinta islaamka rabaan inay dadka ku dhaqaan laakiin qaabka ay dadkii ula dhaqmayaan iyo shacabkii iyo dadkii kale ay ula dhaqmayaan marka aad aragto soo iyada laftigeeda lama dhihi karo waa dhibaato kale xaqiiqdu waxay tahay wariye Cabdullaahi waxyaabo qaarkood oo maanta aanan rabin inaan ka hadalnaa jira laakiin anigu waxaan aaminsanahay peaceful
power in wadanku uu ahaado nabad awood nabada micnaheedu waxa weeyaan ururadaas argagixisada iyo waxaas jiro wadanka la dagaalamay oo xasuuqay oo qoryaha qaatay ma aha nidaamka saxda dawladda Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeedna waxa loo baahan yahay inay ka bilaabaan qabiil inay diinta u qaataan oo qabiil walba inta farta taagu yiraahdo annagu waxaan ku dhaqmaynaa diinta islaamka ilaa ay ku timaado wadanka Soomaaliya wada muslimiin wahay laakiin diintii lagu lama dhaqmo diintii waxay noqotay wax afka laga sheego dhaq waxa la rabaa completely wax alla waxa sameynaysid inay diinta ku salaysan tahay everything in your life wax walba sameynaysid diinta ku salaysan tahay ma dhihi kartid ludda jacli lafta jacli ma dhihi kartid macnaha lama dhihi karo in nin la yaso oo la yiraahdo adu mid gaana taa gabadheeda ma guursanaysid ama gabadhaada u diidid ama tiisa aad faquuqdid oo aad u dirtid inuu al-shabaab noqdo because ninka ciil ahaya dagaal ku jira oo ka aarsado ma sameey kartid at the same time naatira diinta ku dhaqmaa isma raacda labadu waxa la rabaa diinta islaamku siday tahay oo qaadano diinta islaamku waa xalka kali wadanku leeyahay mid kale haddaan taas kugu daro waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago annaga haddaan Soomaalinahay annaga abuurna annaga ku riixna dadku inay noqdaan argagixiso sababta aan ku riixna waxay tahay haddaad qof yasto oo aad ku yasto qabiilka uu yahay oo Allah subhanahu wa ta'ala ka soo horjeeda qaacidada Ilaahay in akramakum inda Allah yatqaakum qofkaas waxaad u dirtay ama aad ka adeejisay inuu noqdo cadowga wadanka Soomaaliya arintaasi waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha ka istaageen hal la qaato dastuurka islaamka dawladdu hadii shacabka iyo qabaa'ilka iyo salaadiinta odayaasha ay qaataan dastuurka dawladdu waa qaadanaysaa halkaasna ka bilaabanaysaa maalintaasna waxa dhamaanaya nin argixisa waxa dhamaanaya nin hub wata muxuu noo sheegay nin hub wata haddaan ba diinta anagu qaadano waa haysanaa diintii laakiin maantay حقيقة رسمي وجرتها واحد تاعي هدي ونفديو برلمانكا أو ليه أنا وشرعي بندجينيا أو ربينو دجيو شرعي إلهي ونوك يعني أنت السنة كور أو ليه كل رقمة أسوي شرعي كله إنه دجيو هدور ربو أرنتاس الدين الإسلام كقلة دي كتاي وأنا كسور جدا ما لكولنتين أنت أدارنتان ودين حلوانا كترسن برلمان الصومالي أو مو بنكتين well anagu arinta number 1 noo ahayd bariyahan waxay ahayd in aan bedelno astaanta qaranka iyo caalanka iyo haybta koorka inaan tirno arinteena dastuurka islaamka inaan ku dhaqanana waa voice garaynay waa kala hadalnay qof kasta oo Soomaaliya maantay wuxuu aaminsan yahay dastuurka islaamka ku dhaqmo qof diidani ma jiro wali ma aanan arkin qof intaan la hadalna aan yiri dastuurka islaamka ku dhaqano oo yirmaya dastuur marno ma jiro مجرو دستور كان الإسلام كوا دميسترين هاي دستور كإلهي بنكون رقمنا وأنا كتاب كجامعة السهر من نكون رقمنا معناه التاسويح وياي أنا إسكندرنا وحي كلته الدستور الصومالي وحرك دودية وحيلين سيدا تبدأ أدقو تريو كلته وحي كتاب وحي قرنت الدستور كان وحي دين كسور جد الدستور كا إن لجوجيو إسلام مركزنا واحد وجد داد قرية wax ka soo horjeeda dastuurkii ama ba in la qoro oo wixii dastuurka ku yaalay in la soo qoro macnaha islaamka diinteena wuxuu ku yaalay in la soo qoro arintaas waa qalad dawladdu waan la ogtahay waxaan wadno contact aan la sameynay arintaana de shacabka Soomaaliya u taala inay dalbadaan oo dawladda weydiistaan waxyaabo khalad ah oo idinka aad si gaar ah aad u aragteen ma jiraan oo dastuurka ku jira well way buuxaan oo Soomaaliyeed inaan ka soo qaado dadan wax fahmaynin dadka Soomaaliyeed oo og yihiin waxyaabo badan oo dastuurkeena maanta ku jira inay ka soo laakiin dadku inta badan ma akhriyaan dastuurka dadka shacabka inta badan مثلا waxa ka soo horjeeda ciqaabaadka sida loo sameeyo kaleeto qofka markii wax la ciqaabayo ilaa diinta islaamku waa diin loogu talagalay macnaha qofkan dambigan haduu galo in ciqaabteeda la mariyo dib kuma jirto مثلا qaangaarka daado kaleeto مثلا waxyaabaha la yiraahdo macnaha a lot of things waxyaabo far badan ku jiro oo ka soo horjeeda diinta islaamka hadda maantay kitaabkeena jaamaca dastuurka hadda maanta inoo yaal waxaad ogtahay dhawaan in la keenay baarlamaanka Soomaaliya in la keenay qorshihii aad foosho xumaa ee runtii Ilaahay uu naga celiyay ee jinsiyadda waxay laga naxo waxay laga yaqiiqsado dadka Soomaaliyeedna runtii caybay ku ahayd way iska difaaceen laakiin dadkaasi ma nasanayaan waa soo noqonayaan boqol mar ay soo noqonayaan waxaan marka rabaa si ay u dhamaataba arintaas waxaan rabnaa hadaan tiimta ku nool si arintaas u dhamaataba in arintaas laga hortago oo dastuurka islaamka la qaato halkaasna warku ku dhamaado hadii waxyaabaha qaar oo hadda aad sheegtay wax laga bedelo oo dastuurka la raacsiiyo waxyaabaha aad sheegtay ma aqbali doontaan well anagu waxaan ka midnaa shacabka Soomaaliyeed ma hubaysnin cidna la dagaalamayno waxa aan wadanaa kaliya waa afkaas iyo xaqa aan wadanaa bis inaan aqbalno iyo inaan aqbalin annaga wax weyn oo Soomaali ay ka qabanayso male kaliya waxaan nahay macallimiin wadanka u soo baxay oo ujeedadoodu ay tahay dadka Soomaali inay wax baraan kaliya anagu awood ma sheeganayno waa aqbalaynaa iyo ma aqbalayn mid ma dhihi karno because shacabka Soomaaliyeed waxaan nahay 28 qof oo hubaysnayn oo warkooda kaliya la taagan awoodda noocaas marka aan ku sheegano waxaan aqbalaynaa ma aqbalayn ma bilihim waxyaabaha kale oo laga yaabay inay dadku isweydiiyaan waxa kamid ah Sufyaan iyo groupkiisa ma laga yaabaa in hawsha markay saan u sii wadaan in marka dambe urur diimeed ay la galaan maaragtay
marka dambe ay noqdaan urur diimeed kadibna dalkii maaragtay hawl kale ay ka bilaabaan arrintaas ma laga yaabaa inay dhacdo well anaga arrintaas lagama yaabo inay dhacdo waayo waxay ka soo horjeedaa hadafkeena iyo waxa noo qoran oo ku heshiinay anagu waxaan ku heshiinay oo noo qoran in qofka tala ku nool ku jiraahi uusan ka mid noqon karin xisbi siyaasadeed ama ha ahaado mid diineed ama ha ahaado mid aan ahayn diini macna xisbi siyaasadeed markaan leeyahay anagu siyaasadda islaamka aan taageersanahay oo siyaasadda islaaman hadda islaaman oo siyaasadda islaamka u ololeeya laakiin xisbi gooni u taagan oo raba xil inuu qabto kuma jirno wuxuusan qofku ka qayb geli karin wax la yiraahdo ama uusan raadi karin xil siyaasadeedna ma raadi karo waxa aanan samayn karin inaan dawladda mucaaradno marka nidaam noocaas noo yaal soo nidaamkeena naga reebaya inaan noocaas ba noqono ama aan noqono urur siyaasadeed ama mid diineed ama mid ku rabaad arinta Somaliland waxaa jiray dawladdan ka horeeyay iyo dawladdanba in wada hadal lala furay Somaliland oo sidii soo dhawaansha la sameyn lahaa waxaad dhahday dastuurka waa in la bedelo oo kitaabka quraanka kariimka lagu dhaqmaa maxay kaalin ay ka qaadan kartaa arrimaha hadda la kala taagan yahay kaalintiisu intee noqon kartaa idinka anaga haddaan tiimta ku noolnahay waxyaabaha markii aan wadnay dooda ah calanka Soomaaliya in la bedelo waxaan soo bandhignay 3 qodob oo ah kow anagu inaan samaynin labo inuu yahay calan aan naga turjumin anaga saddex inuu yahay calan diimo kaleeto astaan ah waxaan ku soo darnay hadda dhawaan doodeennii afraad oo ah in uu calankan yahay kala qaybi dad Soomaaliyeed ayaa waxay emotionally ama si caatifada ugu doodaan waa waxa kaliya Soomaali mideeya anagu waxaan leenahay ma aha waxa kaliya Soomaali mideeya in fact waa waxa kaliya ee Soomaali hadda maantay aan u jeedno ee kala geynaya Soomaalida waxaan taas u leeyahay marka in calanka la bedelo waxay qayb ka tahay isu soo dhawaansho ay soo dhawaadaan Soomaaliya iyo Somaliland ay qayb ka tahay waxaan ognahay Somaliland in ay diideen completely calanka Soomaaliya maantay ay diidan yihiin waxaan ognahay inay calankaas aysan rabinin kor iyo hoos walba ay noogu sheegaan waa noogu sheegan marka qofka Soomaaliga ama wadaniga ah Soomaaliga ee diyaar u ah ama rajo ka qaba Somaliland inaan mar labaad isku soo laabano waayo xukuuma qasbi karno ma soo celi karno xukuuma soo celi karno qofka marka rajadaas leeyahay waxa loo baahan yahay calankan inuu faraha ka qaado kuna hamiyo in calan cusub si wada jiraan u samaysano annaga fikirkeena reetalo ku nool waxaan aaminsanahay Soomaaliya iyo Somaliland inay wada fadhiistaan ayagoo isla eg equal ah ay ka tashtaan mustaqbalka iyo ayaa wadanka markaan leeyahay ayagoo isla macna waxaan ka wadaa inaan Somaliland loo yeerin ama aan loo sheegin waxay sameey lahaayeen ama aan la dhihin gobolaatiine ka soo qayb galo gobolada kale la soo sinmaan la dhihin aan la simin gobolada kale ee wadanka jira bal ay qaataan darajada iyo xaq ay leeyihiin oo ah inay yihiin partner ama walaal la siman Soomaaliya isoo fadhiistaan sidaasna xal ugu gaaro taas micnaheedu wuxuu yahay calan cusub in la sameeyo dastuurka islaamka in la qaato iyo in laga hadlo qaabkii loo dhaqmi lahaa halkaas marka laga bilaabo maanta calanka aad soo bandhigteen oo dhowr calaamadood leh calaamada dhaxda ku jirto iyo falaaraha laftigooda marka la fiiriyo dadka qaar waxay ka keeneen fikrado kala duwan idinka markii aad sameeynayeen halkee ku asteeysan well marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan raado horta calanka anagu maanta aan keena ama aan wadano ma aha calan aan ujeedadeenu ay tahay ama must ay tahay in la qaato wa calankan waa tusaale micnaheedu waxa weeyaan in anagu haddaan Soomaaliland awood u leenahay calan anagu aan leenahay inaan samaysano sida daraadeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed markay ka fakarayaan inay ka fakaraan war calan anagu aan samaysano mid anagu leenahay aan samaysano micnaheedu waa intaas ujeedaduna waa intaas therefore marka calanka anagu aan keenay waxaan ku bees gareynay taariikhdii Soomaaliya dhaqankii Soomaaliya iyo diinta islaamka saad aragtaba waxa dhexda uga jira Allah way jiraan dad badan oo hadee ujeedadoodu ah mucaarada ama caadifada ama taageeraya calankii hore oo isla ceeb u raadiya kan laakiin muhiimku ma ceeb inuu noo raadiyaan waayo calankan aan anagu wadano marna inuu noqdo midka lagu qasban yahay ama Soomaaliya inay qaato waa tusaale micnuhu waa intaas ma jirtaa in calaamada dhaxda uga jirto oo falaarta leh oo dabcan waxaan u maleynayaa Allah aad dhahday inay tahay dadka qaar ay geliyeen calaamad ay geliyeen ay leeyihiin waxa laga soo koobi gareeyay swastika trident Hindiya swastika trident waxay u qoran tahay W ay qoran tahay waa W meedana anaga tan wadanana waxa weeyaan waa alif lam alif وألف لام لام ها هذا ماشى لبا سيفود وسي كلا جدوي oo lagu talagalnay seefahaasi inaan qodaan inaan ku astayno seefa al-haq oo macna cadaalada diinta islaamka wa Allah oo qoran si waxay u qoran tahay symmetrical markaan kule waxaan ka wadaa waxay u qoran tahay dhinac kastoo ka martid markasta Allah u jeeda soo ereyga ay soo qaateen oo yiraahdeen waa waqti ama calaamadu waa sidii way u qoran tahay tanina waxay u qoran tahay waa alif go'an laam kale ku xiga haadii oo fanax yar leh waa intaas qof kasto de u jeedana waxaad u jeedaa inay iska caddaa mid kale ku dareen waxay tahay
waxay soo qaateen xidigta waddanka Nepal ugu jirta calankooda xidigta waddanka Nepal calanka ugu jirta waxay leedahay 12 gees ta anaga wadana waxay leedahay 10 gees waa kala duwan yihiin waxaas oo dhan fasiraadeeda waxa runtii asalka ah ama aarna shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaagno in ay shacabka Soomaaliyeed anagu calankan keena maaha calan lagu qasbay in la qaato waa calan aan ugu talagalno noqdo tusaale waa calan ugu talagalno bulshada Soomaaliyeed inay ogaato in anagu wax samaysan karno kuna baraarugaan ujeedaduna ay tahay in anagu aan isku nimaadno calan aan samaysano calan Soomaali wada dhantahay Soomaaliland miis ka fadhiso Soomaalida kale miis ka fadhiso xitaa laga talageliyo Soomaalida kale caalamka ku nool ee la yiraahdo maxaan samaysana loo diro research loo diro committee-gaasi ay calankaas keenaan calankii lagu bedeli lahaa laga shaqeeyo mustaqbalka ayaatinka waddanka calan hanuuniya waddankeena diinta islaamka ay ka muuqato dhaqankeena uu ka muuqdo taariikhdeena ay ka muuqato intii aad wadeen barnaamijkan oo maaragtay warbaahintan aad ka hadlaysay falcelin badan ayaa dabcan ka dhalatay maxaa xog ah oo aad hesheen adeetiin tala ku nool runtii waxa weeyaan haddii aan qosli karo inta ay la eg tahay falcelinta soo gaartay waa qosli lahaa laakiin macnaha qosol xataa kuma gaarin micnaheedu waxaan ka wadaa waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanaa waxa Allah mahadiisa subhanahu wa ta'ala inaan gaarnay guul runtii maanta la taaban karo oo tangible dadkii Soomaaliyeed saddex ay u kala baxeen intii wax akhrin kartay ama awood u leedahay inay wax akhrin kartay maanta waan taageersan oo aan caatifad lahayn macnaha waxaana taageersan almost 45% statistics-ka aan samaynay waana taageersan waxay taageersan calankan in la bedelo oo lagu bedelo calan cusub oo Soomaaliya samaysto waxa xaqiiq noqotay oo doodeeni ka soo baxda kow in calanka Soomaaliya aysan samaynin cawaali inuu samaynin inay been tahay cawaali inuu hanin loo soo dhiibtay nin inuu ahaa wiil Talyaanigu soo korsaday inuu ahaa nin iyagu ay lahaayeen almost sidaas soo baxday dadkii yaa baaritaankii ku heleen anagu ma aanan dhihin Soomaalida yaa hadale social media oo dhan ku jirta waxa soo baxday calankan inuusan anaga naga turjuminayna la ekaatay waxa soo baxday inuu yahay calan astaamo kale oo diineed ay ku jiraan waxa soo baxday heestii calanku inay tahay hees cibaado loola jeedo waxa soo baxday maanta oo shacabkii u cad qofka Soomaaliga ee wadaniga waxa uu cad hadii aad rabtid Somaliland waxa ku qasbantaa ama Somaliland dooro ama calankan dooro qof kasta oo wadaniga wuxuu dooranayaa Somaliland walaalaheena inay la joogaan marka waxa noo soo baxday reaction-ka nooga soo baxay falcelinta nooga soo baxay shacabka waxay tahay taageero aad u fara badan oo runtii aanan ku fakirin inaan helayno waqtigan xaadirka ma hadaasna Allah subhanahu wa ta'ala iskale iyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii ka sara maray ama ka fiican ama ka aqli badan inta aanu maleyneen aad u maasantahay ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka ayaa maraynaa maxaa macno ah oo dadka Soomaaliyeed oo u yeelan kara xilligan hadda lagu jiro 2020ka oo dabcan adduunkii isbedelo badan ay ka jiraan haddii ay idin suurta gasho in isbedel lagu sameeyo calanka Soomaaliya xilligan aad aragto Soomaaliya halkii ay kala taagantahay maxaa isbedel lagu sameyn karaa Abdullaahi aad iyo aad u mahadsantahay horta waxaan rabaa meesha inaan ka bixiso haddii ay idin suurta gasho calankan waa la bedelayaa maalmaha u harana waa tirsan yihiin taas xaqiiqa qof kasta oo Soomaali wuu ogyahay the days of this flag are numbered waa wax xaqiiqa la isku haytaas wuxuu ka qaban karaa marka inaan bulshada la wadaagno calanka oo la bedelo maantay oo aan samaysano calan annaga naga turjuma taariikh ahaan diin ahaan dhaqan ahaan naga turjuma haddii aan samaysano waxa uu noqonayaa ama calaamad astaanta qaranka iyo calanka waxay noqonayaan aasaaskii wadaninimo ka dhalata waddankeena iyo jacayl inaan jeclaano diinteena iyo dalkeena waxa meesha ka baxaya dad Soomaaliya oo dhalinyaro ama odayaalihi inay ku tiihaan ama aysan xataa fahamsanayn calanka maanta micno u taagan yahay calanku waa muhiim waddanka muhiim u yahay waa waxa hanuuniya waddanka waa astaanta qofku iska fiirsado sababtaas daraadeed Talyaanigu wuxuu naga ilaaliyay in ay jiraan wax anagu aan leenahay oo cuskan ku dhigno waa naga ilaaliyay calanka anaga ma lihin dhaqankeena ka tagnay astaantii qaranka ka tagnay xitaa magaceennii Soomaaliya oo ahaa meesha uu ka mid originally ay ahayd abtirsiimo aan leenahay waxa uu ka dhigay Soomaal wax la yiraahdo oo aan meesha ku jirin oo ereyga ugu yar isticmaalka ereyada Soomaalida ku jira laakiin waxa adeegsatay hanuunin calankeena dadka hanuuniyo yes soo laftigeeda ma ahan bidca arintaas no hanuunin macnaha waxaan ka wadaa waxaad iska aragto hanuunin macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu heesta aad ku haysato laftigeeda Soomaali noqonaysa waa kala duwan yihiin marka adiga astaanta qaranka mesela masaajidka oo kaleeto marka masaajid la dhiso masaajid dhisan yahay masaajidku wuxuu taagan yahay astaan islaam u dhisan yahay macnaheedu waxa weeyaan waa baytullah waa hanuuniye masaajidku calanku sidaas oo kaleeto haddii astaan qaran oo qofka bulshadiisii macnaha uu ka dhex arkayo astaantii ama dhaqamadii uu lahaa asagu diintiisii
taariikhdiisa uu ka dhex arkayo wuxuu qofka ku hanuuninayaa inuu jeclado diintiisii iyo waddankiisii macnaha aan ka wadna hanuuniya waxa weeyaan ma aha in uu ku hanuuninayo diin kaleeto wuxuu ku hanuuninayo qofkaani inuu ka guuro qabiilkii oo u guuro qaran wuxuu ku hanuuninayo qofkaani inuu diintiisii jeclaado saasuu ku hanuuninayaa hanuuniya waxaan ka wadnaa sababta caalanka loo sameeyana waxa weeyaan maalan marka aan u laabto waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam caalanka waxa loo sameeyay inuu ku hanuuniyo asxaabtii waqtigaas inaysan jabin ee wali dagaal ku socdo taagan yihiin inuu ku hanuuniyo meesha ajo hanuunin macnaha waxa weeye waa guide inuu ku wado qofkii meel ku hanuuniyo macnaha laga wada saas oo aan ma hanuunintii diinta ma maasanta waqtiga qaaliga kaga mahadcelinayna thank you very much Abdullah aad maasanta gudaha daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaa wareysiga gaarka ah oo aan u mahadcelinayno waqtigiisa qaaligaana barnaamijkan ku soo bixiyay aqoon-yahan Sufyaan Sheekh Axmed oo dabcan taariikh badan ka haya Soomaalida iyo Soomaaliya guud ahaanba waxaan ka wareysanaynay halka uu ka yimid ereyga Soomaali oo dabcan dad badan ay isku haysteen taariikh ahaan iyo maaragtay sida loo kala duwan yahay waan u mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo noogu iftiimiyay dhanka farsamada ee kaamiradu waa Naasir Macallim aniga Cabdullaahi Axmed Cali la socodsiinayay dib intaan u kulmi doono wareysi kan lamida dhamaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo